واي هل كذا بعض كسي ولنا أنت أنا رجل قدومي أنا كسر دوين إسماعيل يوسف وحان هذا سوق قبل يا قدوميها مجالنا أما حد بانك مجالنا وصاحب كي حكيم عيسى والله كسر دو كان عفوا عبدو بكال هذا ما يصنعه ويرجع من مركبات وعليه ربح أنا مسافر وعن سلام يا قدوميها UDDS يحققها waxaan leeyahay ku soo dhawaada sidii maxamed daahir buu yiri magaaladiini aad ka yara maqnaydeen laakiin dad badan ay idin degan yihiin haddii qayb ka mid ah mujtamacu halkan degan yihiin waliba ay saatan idin taageersan yihiin taas micnaheedu wuxuu sheegayaa inaad halkan u dheedo wax ka degan tihiin inta gadaasheed xisbiga cusub sanad jirsaday waan soo dhawaynaynaa sababtaan u soo dhawaynaynaa ma ahan ikhyaar annaga naga mid ah ama aan garanayno ayaa guddoon u ah waxaan u soo dhawaynaynaa waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino inay raadiyaan wax naga wada maqan haddaba wax naga maqan maxay yihiin waxaan ognahay inteenaan maanta halkaan iskugu timi iyo inta kale ee magaalada degan in runtii ay u yimaadeen iyagoo raadinahaya opportunity halkaan ka soo raadiyeen opportunity halkaan ka soo raadinay hase ahaatee mid la mid ah oo waliba ka hawo fiican marka kuleel yar laga reebo ka dhul fiican ka cunto fiican ayaan ka nimi sababtaan uga nimi maxay ahayd sababtaan uga nimi I don't think inay wax kale ahayd waxay ahayd oo kaliya nabadgelyo ahayd nabadgelyada maxaa naga qaaday nabadgelyadii waxaa naga qaaday ninkaan iga horeeyay maxamed faarax tuu taabtay maxamed daahirna uu ku sabortigareeyay ee ahayd sort of fairness cadaalad noocun ah inkastoo cadaaladda uu leedahay qof kasta uu si u arko midda aan oran karo meesha waa ka maqan tahay waa midaas oo aan leenahay UDDS hadduusan cadaaladda wax ka raadin karin haddii waxyaalaha mujtamacu ay tabanayaan aysan wax ka haaban karin haddii aysan keeni karin isbeddelka loo baahan yahay ee ijtimaaciga ah ee waxbarashada ah ee caafimaadka ah ee employability-ga ah dadkii daysta u shaqaystaan intaasba waxaan leenahay UDDS waxaad moodaa in aysan gaari karin yoolkii ay lahayd yoolka ay leedahay xisbigu ma jiri karo hadduusan helin taageerada mujtamaca wixii lagu heli karaa waxaan u maleynayaa inay tahay baahida mujtamacu uu tabanayo oo wax laga taabto okay intaa gadaasheed xisbiyo badan baa wax ka soo dhismay aan u maleynayo geeska Afrika meelo badan oo ka yimi ka mid ah inay ka shaqo galeen aan ka soo bilaabo Kenya aan ku xijiyo Ethiopia aan caawi aan u taaganahay Djibouti in badan oo Soomaaliya ka mid ah laakiin waxaan ku waafaqsanahay maxamed daahir hadalku yiri oo ahayd warta mucaaradku inay wax dumiyaan ma ahna faa'iido ma keenaan marka aan u fiirino fikradda dalka ka jirta ee more westerners-ka waxaan oran karnaa yes way keenaan laakiin markaan ku fiiriyo maskax yar oo waliba Djibouti aan ka reebay inta Soomaaliya intaan caqlisaday last 20 years xisbina soo maray oo aan oran karno faa'iido aan taaban karno uu noo sheegay anigu ma arkina malaha dad miya aragteen haddaba waxaan leenahay xisbiga UDDS waxaan u soo dhawaynaynaa mar kale in uu keeno horumarka iyo cadaaladda mujtamacu ay tabanayaan haddii aad noqotaan xisbi haaban kara wax ka qaban kara baahiyooyinka jiraana taageerada caawa kaliya kuma ekaan dantay abadiyan baan ka dhigaynaa laakiin waa inaad keentaan wax maqan oo aan maanta lahayn oo ah horumar oo ah cadaalad okay inta gadaasheed haddii hase ahaatee ay yara simbirixataan waxaan ka shaqaayi doonaa war habeenkii maxaa meesha dhigay aad baad mahadsantihiin salaam calaykum